بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada walaalayaal barnaamijka baradiintaada waxaan ku suganahay maanta wadanka Sweden gaar ahaan magaalada Örebro dadweynaha ku degan halkan ayaan rabnaa inaan su'aalo diiniya weydiino insha Allah cidii ku guuleysatay su'aalahaas waxaan siinaynaa hadiyada qaaliya biidnillah soo dhawaada daawasho wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله. magacaaga هوية Soomaaliyeed. waay hooyo Soomaaliyeed ku soo dhawow barnaamijka baradiintaada insha Allah su'aal diini aan ku weydiinayna hadii aad garato halkan waxaad kala tagaysaa hadiyad wanaagsan insha Allah su'aasha aan ku weydiinayo maadaama tahay qofkii ugu horeeyay insha Allah waan ku fudaydinayaa biidnillah tabaaraka wa taala waxa sheegaysaa kitaabkii u dambeeyay ee Ilaahay uu soo dejiyay kitaabkii ugu dambeeyay kitaabka Qur'aanka Kariimka kitaab kale oo ka dambeeyay ma jira oo Qur'aan ah oo Ilaahay soo dejiyay maay kaasa u dambeeyay hadaba waxaan eegnaa bal jawaabtaada insha Allah taala su'aasha aad ka jawaabtaad bixisay waxa weeye waa sax hambaliyo oo ku guuleysatay ma sha Allah hadiyad baa ku siinayna biidnillah barnaamijku ma daawataa waa daawadaa markii wadankii joogay iyo iminka laakiin hore uma arag waa markii koowaad malaa iminkaan la kulmo si wanaagsan ma sha Allah tabarakallah hadiyadaadan ku siinayaa hambaliyo aad iyo aad baan kugu mahadcelinayna mabruuk السلام عليكم فاحية ايه سلام magacaadero أيوب ku waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka baradiintaada su'aal diini ayaan ku weydiinayaa jag ska fråga dig en fråga om du svarar på rätt sätt du får pengar eller hur det är jättebra haddii aad su'aasha ka jawaabto lacag baad helaysaa insha Allah de إن شاء الله فريد أيوب أقدر كسر سؤال كوديني وحويان نبي جينا مجد عيسى متقنا حمل ما شاء الله همبلي ما شاء الله فريد أيوب سيدا دو أردت هم كفر أحسن تاي أو هديت بالغسينية العقب بالغسينية مانت ما شاء الله قبصة شكرا جراتيس جراتيس شكرا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام magacaaga walaal عبد الله ku soo dhawow barnaamijka baradiintaada insha Allah su'aal diini aan ku weydiinayaa hadii aad ka jawaabto insha Allah hadiyad baan ku siinaynaa waxaan ku rajaynayaa inaad su'aasha ka jawaabto wad maqashay saxaabiga la Bilaal nin adoon buu ahaan jiray ma garanaysaa saxaabigii xoreeyay xorka ka dhigay أبو بكر الصديق ما شاء الله wad garan ma sha Allah kaga soo qaaday ma sha Allah كرنال hambaliyo bro barnaamijku wala socda والله صعب برنامج يوتيوب كان كدعوة على لفتي أنا يوتيوب حتى على ما شاء الله مركا ولا لها يبان أيان داوسين شرا ما شاء الله الله يبارك حتى أبدا بقى فايت حتى ما شاء الله جزاك الله خير aad badu ma santa walaal baarak Allah السلام عليكم walaal وعليكم السلام magacaaga walaal علي oo ku soo dhawow barnaamijka la yiraahdo baradiintaada insha Allah su'aal diiniyan dadka weydiinaa qofkii ka jawaaba hadiyad baan siinay biidnillah marka su'aal baan ku weydiinaya diiniya su'aashaas waxay tahay ma garanaysaa suurad kamid ah Qur'aanka Kariimka ah oo 3 meelood hal dalool ama 3 meelood marka Qur'aanka loo qayb u dhiganta suurad yar aad u yar weeyaan garanaysaa suurada 3 meelood loo kala dhigay Qur'aanka macnaa 3 meelood markaynu u qaybino qayb bay u dhigantaa 30% boqolkiiba 30 bay u dhigantaa waa suurad aan akhrino marka salaada laga baxo waa la akhriyaa habeenkii iyo subaxii waa la akhriyaa suuradaha yar yar waliba weeyaan suuradaha u dambeeya quraanka soo garinaysid وكسل لكن أنا waxaan u maleynayaa waxaan u maleynayaa suurad alxamdulillahi rabbil aalamiin ma sha Allah may taasina aad iyo aad u fadli badan tahay laakiin waa dhanka kale egtaas waa bilowga suurada xaga soo bilaamayso halka hoos ama kan hoos haduu yahay qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad waa saxsantay laakiin suurada magaceeda maxaa suurat al-ikhlas suurat al-ikhlas ma sha Allah kaga soo qaad hambaliyo hadiyad baan ku siinaynaa أبو محسن تولى جزاك الله خيرا الله يبارك السلام عليكم عليكم السلام مقعة ولا مقعي هو مريم كسر دو برنامج كبر الدين تادا إن شاء الله سؤال ديني أنكو الدينية سؤال شأنكو الدينية وحا أي تهي
waxaad sheegaysaa salaad la tukado oo ka kooban maaragtay 2 ragcadood waa 2 ragcadood laakiin waxay leedahay 2 rukuucood iyo maaragtay 2 qiyaam 2 jeer baa la istaagaya 2 rukuucood baa leedahay salaadaha kale ragcadii kastaaba hal rukuuc baa dila rukuuca Soomaa iyadu 2 rukuucood baa leedahay hore ma aragtay salaad noocaas may haddaan isku dayo waxaan markuu qofku dhinto miya janaasada lagu tukanayo may tama wad soo dhaweysay laakiin salaad kale baa jirta oo iyaduna mar halkaad ka rukuucaysa hal mar baa la rukuucay iyada 2 jeer baa la rukuucay maxay tahay marka ay qorraxdu madoobato waa markii qorraxdu madoobato waa sax ma sha Allah wad kaga soo qaatay hambalyo waxaan ku siinayaa hadiyad baa ku siinayaa insha Allah nasiibkaagu wanaagsan yahay su'aasha wad garatay hambalyo كون برنامج كم دعوتها؟ وان دعوتها واحد بدن بنك فهم الدين هانتا وان كبرتين بدن. ما شاء الله همبليا جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماما مقع نوشي. مريم علمي. مريم علمي كسر دو برنامج كبردين هذا إن شاء الله سؤال ديني كويديننا هديات كجوابته هديات بنكسيننا. سؤال شان كويديني وحويان إلهي سبحانه وتعالى لما مقع أولي هي. laba magacyo badan bilaahay leeyahay Soomaa iyo 9 magac baa la sheegay laba kamid oo noo sheeg waxa weeyaan Allah haye Rahman ma sha Allah ma sha Allah mid kale ma noogu dari kartaa Ar-Rahim ma sha Allah tabarakallah Xaaji Maryan wad kaga soo qaaday su'aasha horta wad saxday hadiyadna waan ku siinaynaa barnaamijkan hore ma u daawatay waan daawaday ma sha Allah wax badan ma sha waan jeclaa inaan كغيب قالوا ما شاء الله الله يبارك فيك الله يبارك فيك جزاك الله خيرا si wanaagsan baad u sheegtay ma sha Allah tabarak Allah maamooyinka kalena iyagana waxaan rabnaa inay saas oo kale ugu soo dhiiradaan oo ay ka soo qayb galaan barnaamijkan hambalyo shukran jazakumullah khair Allah ybarak